arlada haddi lagugu aamino ummadda uu sabeediyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko min xilqaaday eed qadiihoy min xilqaaday asalaamu calaykum kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka tixraaca odaha iyo kale aad ka daawataan telefishinka Som News TV xarunta uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. barnaamijka guud ahaan waxaan ku qaada dhigi doonaa arrimo la xiriira gobolka Shabeellaha Hoose ee siyaasadda guud ee Soomaaliya, waxaana arrimaha ila falanqeynaya oo barnaamijka igala qayb galaya Abwaan Yuusuf Maxamed Muumin oo kamid ahaa ardadii ka qalin jibisay barisamaadkii jaamacaddii ummadda kulliyadda siyaasadda iyo saxaafadda, qaybna ka ahaa hobolladii qaranka ee Waaberi. barnaamijka ayuu igala qayb galaya arrimahaas iyo arrimo kale oo ku geedaaman gobolkaas ayaana qaada dhigi doonaa. abwaane marka hore kusoo dhawow Som News TV. marka xigta su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxa ay tahay baryahan waxaad social media ama barta Facebook aad ku leedahay aad jeedinaysa baaqyo kala duwan oo ku wajahnaa dadka dega gobolka Shabeellaha Hoose. baaqyadaada xilligan maxaa ku soo beegay? bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka hore waa xasankahay adiga iyo guud ahaan bahda Som News. marka xiga waa run baaqaan usoo jeediyey, waxaan usoo jeediyey shir maalmahan ay odayaasha ku baaqeen iyo waxgaradka deegaanka gaar ahaan caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose magaalada Marka in lagu qabto berrito oo isniin haddii ilaahay idmo sida uu qorsho u ahaa marka hore. shirkaasi waxaa looga hadlayay maaragtay arrimaha qoyska iyo talada siyaasadeed iyo qaabka koonfur galbeed wax laga yeelayo. anigana waxaan usoo jeediyey in la hakiyo maadaama dalka xaaladda uu ku jiro aan ujeedido ah in uu ka jiro cudurkii markaa ama cudurkii dilaaga haya koronaha oo dhibaato badan ku hayo, ka hortagiisana uu yahay inaan la isu imaanin. midda kale in uu shirku ka baaxad weynaado sida hadda loo dhigo kale oo uu noqdo shir ay isugu yimaadaan aqoon-yahankii dalka ku sugnaa, kuwii ku sugnaa dibadda oo meelo kala duwan, markaa si fiican in loo lafaguro oo maaragtay annaga horta aan dib isu akhrino sida qabaa'ilada Soomaaliyeed bay sameynayeen, markaasna aan noqono mowqif midaysan oo uu noqon mid degdegan. waa gartay. xilligan maxaa ku soo beegay in arrinka aad ka hadasho oo baraha bulshada aad isticmaasho? waxaan isleeyahay waa la degdegaya haddii oo hadda waxba la qabto carada mugtahay qofka markuu caroodo caro wax kuma qabto. waxaa fiican bahasha in loo saldhigo oo la yidhahdo bal horta annaga maxaa naga khaldan, maxaa naga maqan, maxaa naga saxan, maxaa naga hadlaysan, qaabkeen wax u qaban karnaa. taladan waa la badiyaa inteeda badan, marka arrintaasaan ugu talagalay. hadda kolley ma aha bara bulsho keliya ma dhigin, dadkii xataa qabanqaabadeeda waan la hadlay. waxaan rajaynayaa in maaragtay oo arrintaas ay u dhigan nuglaadaan oo ay baaqaas dhegaystaan oo ay shirkaasi maaragtay dib u dhigaan, sababtoo ah miisaankii lala rabay oo inuu yeesho la rabay ma yeelanayo. hadda waxaad ogtahay hadda shirar badan oo xamar lagu qaban rabay, gaar ahaan xataa shir ay iclaamisay beesha Madulo dibaa loo dhigay markii cudurka coronavirus ku yimid. marka iyaguna inay kaas ay u dhigan nuglaadaan wax dhegaystaan aan jeclahay ilaahay. waa gartay. waxaa jirtay kala aragti duwanaansho hanaanka loo wajahayo koonfur galbeed qaarkiin waa ay dhaliilayeen, qaarkiinna waa ay ammaanayeen oo waxay ku ammaanayeen matalaadda aad ku haysataan. kala aragti duwanaashadaas iyo shirkaas maxaa xiriir oo ka dhexeeya? horta ummad kasta oo nool oo caalamka ku nool bulsho ah oo wax ka dhexeeyaan sidooda way kala aragti duwanaadaan, mana isku kulli 100% isku aragti ma noqdaan, laakiin waxaa la raacaa percentage inta badan. marka waxaan isleeyahay markaan dhahay kulankaas dib ha loo dhigo waxay ka mid tahay in xataa talada la badiyo oo dadku isugu imaadaan si markaas inta badan meesha ay jirto iyo fikirkooda inay qaataan. waana aaminsanahay aniga maaragtay haddii la tala badiyo talada degdegsiyaa waxa lagu sameeyo. Soomaalida xataa waxay tiraahdaa geedkii orod lagu fulo orodaa looga soo dega. marka waxaan qabaa in si nege ah oo miir leh in loo fiirsado oo loo xisaabtamo yaa siyaasi ayaa aqoon-yahan ayaa xildhibaan ayaa wakiilano bulsho ah in la isku yimaado horta oo la iswareysto, dadku inay iswareystaan aan aaminsanahay. waa gartay. dadka odoroosa arrimaha siyaasadda qaarkood waxay sheegayaan in arrimahan ay ka dhalatay kadib hadal ka soo yeeray guddoomiyaha golaha wakiilada ee koonfur galbeed Soomaaliya mudane Fiqi.
arrintaas adigu makuu muuqataa waa dhageystay fiqi warkiisii laakiin waxaan leeyahay annaga nafteena waa inaan ogaano awoodda fiqi uu leeyahay cali saciid fiqi waa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada koonfur galbeed ha ahaada guddoomiyaha laakiin cod kuma laha afhayeenka baarlamaanku wuxuu soo jeediyaa wixii uu baarlamaan ku heshiiyey meel uu baarlamaan ku fariistay oo wax ku diiday wax ku ogolaadayna maba jiraanba marka in nin shaksi ah aragti uu meel ka dhahay in la bombooniyo aniga meeshaba igulama jirto midda labaad haddii cali saciid fiqi uu hadlay 7 wakiilaan ku leenahay meesha baarlamaanka jawaabtaasi dadka mudnaa inay bixiyaan dadkaas waaye ma ahayn odayaasha iyo aqoon-yahanada kale ma ahayn jawaabta ragga mudan waxay ahayd ragga baarlamaanka kula jiro oo isaga shalay afhayeenada u doortay kuwaasay ahayd inay jawaabta bixiyaan arrimaha baraha bulshada lagu soo qorayay waxaa qayb ka ahaa in la doonayo in magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose laga wareejiyo caasimadii gobolka Shabeellaha Hoose guuxaasna ay sabab ka tahay shirarkan socda iyo arrimahan taagan arrintaas maxaa xoogad ka haysaa horta qofka bini'aadamka anaga Soomaaliya noqonay dagaalada markay dhaceen dadku maskaxiyan u burburay horta wax kasta inta la iska sheegaa la iska qaadqaataa caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose dawlad dhexe oo Soomaaliyeed oo soo adaga sameysay mana aha wax ku xiran in caasimadda laga wareejiyo wax maamul koonfur galbeed kaliya ay gaari karaan go'aan maaha waa arrintaasi marka baarlamaanka koonfur galbeed horta soo jeedin golaha wasiirada ay sameeyaan oo koonfur galbeed oo loo soo gudbiyay baarlamaanka oo koonfur galbeed markaas kadib madaxweynihii koonfur galbeed uu dalab usoo sameeyay dowladda federaalka oo dekreeto madaxweyne qaran ay kusoo baxdo maaha wax laba meel fadhiisata iyo cali caashi ay ka bedeli karaan maaha marka waxaan jeclaan lahaa dadkayga inay maskaxdoodu ka korto waxyaalaha qaarkood oo daciifka oo loo sheegay inay qaataan inay ka kortaan jeclaan lahaa dadka ka aragti duwan qabsoomidda shirkan iyo qabanqaabadiisa waxa ay sheegayaan in Marka oo ka soo kabanaysa colaad muddo daashatay haddana ay u muuqato wejiga colaadda in dib ay ugu laabanayso wallahi nin colaad horta wax sahlan maaha waxaan u maleynayaa bulshadeena inay aad u dhidhabiso colaadda dhibaatadii gaartay xataa hadda barakacayaasheena inay meelaha qaarkood ku dayacayeen oo waajibaadkii la rabay inaan maanta qabanno iyo qaabka aan u qabanno ay aad u kala fogtahay maanta oo colaad kale ay ku noqoto gobolka horta marka hadday colaad ka dhacdo Shabeellaha Hoose lama joogayo waana horena waa loo soo maray waa la ogyahay aaga Shabeellaha Hoose marka ay ka dhacdo colaad ay ka bilaabatay waa la ogaa wixii la ahaa qaabkooda dadka Shabeellaha Hoose oo dhan waa kuwan hadda xiriyaha barakacayaasha ku sugan oo dib u dejin u baahan waxaan qabaa marka aan lahaa aan shirkan dib ha loo dhigo aan wada tashan aan isku imaano maxaa naga khaldan maxaa naga saxan anaga is weydiino indhahayna kor leeyaysa fiirin hoos ha fiiriyaan markaan lahaa ujeedada aan ka rabo wax kale ma ahayn waxay ahayd inaan xataa ku noqono si shirkaas uga soo baxo inaan anagana ummadda aan ka nabadgalno iyaguna ay naga nabadgalaan inuu noqdo saldhigyada waxyaalaha laga wada hadlayo haddaan ajenda la diyaarin shirka looga wada hadlo haddii aan si fiican la isu lafagurin oo qof xanaaqayo hebel wax dhahay oo lagaba yaabo warkiisa inuusan meelba gaarsiisnayn lala boodo waxaan u maleynayaa waa nooc ayaan dara ah shirkan yaa leh abaabulkiisa wallahi odayaal iyo waxa iska leh dhalinyaro iyo siyaasiyiin dee bulshada ka mid ah qofka bini'aadamkaana xor u yahay isaga naftiisa xataa inay abaabulaan qaybaha hadda bulshada abaabushay laakiin haddana waxaa qurux badan maaragtay in tashiga la badiyo wax mugtay markuu qofku caroodo wax badan ka dhumo inaysan carada wax badan laga dhuminin 5 sano 6 sano dagaal ku soo jirnay waxaan ku soo weynay wiilalaan ku soo weynay haleeyay ah waxaan ku weynay hantiyaan ku weynay waxaan ku weynay xataa horumarkii aan lagu waayay deegaankii marka dhibaatadaas faraha badan oo la soo maray ma aha inaan si fudud haddana dhibaato kale u qaadano ma aha waxa waa inaan horta fariisano qalad adiga aan leedahay mararka qaarkood dadka lama saaro war annaga da Soomaaliya hadda iska dhaaf koonfur galbeed marka laga hadlayo koonfur galbeed marka laga hadlayo iska dhaaf federaalka marka laga hadlayo Soomaaliya annaga way la coogsaa waxay yiraahdaan waxaa tiin xildhibaanada ugu fara badan 7 xildhibaan iyo 2 sano kulan qabaa'ilo gaar ugu leh waa yiriin marka adiga hadda isgabtay dadka kale maxaa xagani qofka muhiimadda waxa inaad qabsato war hebel maxay kugu matalaan waa in la iswaraysto ani markaas waxaan aaminsanahay waxaan dhibaato ay gudaha taalo yaan banaanka loo saaray ani markaas aan ku celcelin laakiin tala isuma ka sheegtaan inaad tolkay waxa uu sheegaa maanta hadday ku fududaan arrimaha qaarkood shalay baalka la yiraahdo ma horeeyo ugu dambeeya in dib uga shalaynaa waxa qurux badan in laga fiirsado waxa ay qabanayso
waa gartay arrimahan mararka qaar waxa ay dadka sheegayaan amaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta ay sheegayaan in lagu kala aragti duwanaansho oo xulidda xildhibaanada ku matalaya koonfur galbeed Soomaaliya marka ku matalaya ee deegaanada ku xeeran arrimahaas miyay ku haysaa wax oo Soomaalida oo dhan maaragtay markaad fiiriso heshiis lagu halko iska yeelaan tan ahaan deegaanka iyo beeshaan waa la ogyahay oo horaan uga hadlay mar raba inaan dib ugu soo noqono xildhibaanada federaal maamul goboleed koonfur galbeed qaabka ay ku imaadeen nin kasta uu ogyahay laakiin haddana hal inaad ilowda ma waxaan horta mulkiyada la yiraahdo ama xukunka la yiraahdo ama maamulka la yiraahdo ilaaha bixiyo ilaahay wuxuu yiri qul illahumma malika al-mulk tu'ti al-mulka man tashaa wa tanzi'u al-mulka man tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudillu man tashaa biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir saas ay ku imaadeen la ogyahay haddana qoraal rabbaani ahayd ilaaha qoray inay meesha yimaadaan marka hadduu imaado nafteed ani waxaan aaminsanahay hadduu imaado nafteed adiga xoreeyni marka meesha ilaaha u soo qoray qaab qaldan ha ku yimaado aabiis ha keeno walaalkiis ha keeno si kale ha ku yimaado laakiin adiga sameey marka inaadan ka harin oo adiga saxatid oo qabatid oo aad bulshada tustid hadduu qofkan in waxa wax ku yahay inaad adiga yahay inaad tustid qaba laakiin inaad tag aamustid adig aad meel kale sii laacay ana waxa arka qalad waa gartay gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan marka la eegayo waxaad moodaa gobolada kale in colaad iyo dhibaatooyin isbeersaday uu kaga daran yahay deegaano badan oo ka tirsan waxaa laga geystay kufsi deegaanka Yaqbari Weyne laba gabdhood ayaa dhowr gabdhood lagu kufsaday degmada Afgooye kufsiga ka dhacay deegaanka Janaale kufsiga ka dhacay marka arrimahan aad ku mashquuleysaan oo arrimaha siyaasadda iyo aad ka daba ordaysaan miyaana idin muuqan dhibaatooyinkaas kale ee dadka loo geysanayo oo ay tahay inaad ka wada hadashaan oo sidii xal loo heli lahaa waxa horta niyo dalka dhibaatay ee ku dhacay guud ahaantiis meel badan oo kufsiga uu ka dhacay dalka Soomaaliya kamid ah gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose xadgudubyada waxay ku noqdeen wax oo ansax ah laakiin uu ku dhacay dhibaataas waxay ku dhacaysaa horta maamulka guud ahaan dalka qaranka laba waxay u soo gudbaysaa maamulka koonfur galbeed iyo maamulka heer gobol hase waxaan ku weydiiyey maanta haddii maamulka heer gobol ah oo xafiis loogu soo hagaaga lahayn gobolka waxaa u dhisan gudoomiye u dhisan waxaa u dhisan ku-xigeenaal sheega waxaa la sheegaa haddana maanta ani haddaan u baahdo ama adiga u baahdo ama shakhsi kale oo deegaanka ka tirsan u baahdo inuu la kulmo maamulkii gobolka intuu baxo xafiis ugu tagayo mala ay saldhig uu leeyahay mobile waa wareegaa marka Soomaalida hore waxay dhihi jirtay walaalow labada falaarada kugu taal tan salka iyo tan isha tan ka bixiya wuxuu dhahay tan salka iga horta aan fariistay markaas aan tan isha aan awoodi karaa haddii maamulkii dhamaa oo gobol loo xil saaray oo meel u fariistaba jiro oo hadda inta ka bax laga yaabo in xamar aan ku dhax aragno oo marka uu gobolka tagay laga yaabo maamulkaas inuu dan yar uu asaga leeyahay uu ku tago ama dawladda yaa socotay kaala soo raac uu ku tago ama iyaga ay shan degmo ku kala nool yihiin maamulkii xataa maxba weyn ma sameeyaan marka xadgudub waaye laakiin qaabkaas waa in maamulka lagu saxan qabaa maamulkan hadda cidii maanta saxitaankeeda raadi Yusuf maaha shakhsiyaad kalena maaha waxa waaye dadkii maanta gacanta ku jirto oo berri ilaahay u weydiinay qof kasta waxaa laga rabaa oo xil iyo maamul hay inuu ku xisaabtamo waxaan inay tahay adduunyo naftuna caadiye aad mar sii daysa inay tahay godka marka ugu horeyso aad tagtana waxaa lagu weydiinaya inay tahay mas-uuliyad marka mas-uuliyad waxa lagu fudaado ma haddaad qaado waxaa laga rabaa inta karaankaaga ah inaad dadaasho waan gartay xalku maxaad u aragtaa horta xalka waa ilaahay horta xalka hayo laakiin caqligeena gaaban wuxuuna tusaaya aniga marka hore waxaan rabaa walaalkay fiqi cali saciid fiqi gudoomiyaha baarlamaanka inaan iraahdo walaalkay ereyga ama hadalka carabkaaga ka baxo nabadda waa kaa kaxeeya colaadna waxba kaagama talo أنا بربوس على فكرة على هذا سوى جلسي وأقل دنا كرتا وبصحنا كرتا لكن واحد درين تي بلشوا على هذا ما سيد الله الله يدك خاركيس إعلان مارك دتك خير ما تكدكن حالي وحكي سوى جلسة دك ماذا برا وحنا مالنا ما أنت هدي برا ولا هذا لو ددوم إيو ديجانا ده كحيرا إيو لما أنتوا ما أنت مقال برا وسوق يدا استعانة لك يا رب وحنا ما بقول كي وتضوات باش وأصادها عن حناق وقطع إسكاله بركة دت ساس سوق حاجة لا واحد waxaan leeyahay ninka geesiga ah ama wanaag yaqaan waa nin ka soo noqdo colaadda u gaaro waxaan rabaa marka hore inuu walaalkay u ka cudur daarto waxaas si ay fidnadan horta u degto marka hore marka labaad waxaan bulshadeeda ugu baaqaa inaan annaga xisaabtano
marka saddexaad maamulka koonfur galbeed oo madaxweynaha cabdicasiis laftagareen hogaaminaya waxaan u sheegaya inuu maanta haddii uu fadhiyo iyo haddii uu taagan yahay iyo hadduu jiifo labadaba inuu gobolkan shabeellaha hoose dhibaatada ka jirta uu u kaco. marka labaad koonfur galbeed oo dhan waxay u baahan tahay dib u heshiisiin inuu dib u heshiisiinteeda u istaago horta uu ka shaqeeyo oo uu ku daydo xataa madaxweyne qorqor inuu ku daydo waxay adig kaa hor yimaado waa meesheed laakiin inaad istaagto oo aad cid kasta oo aad isleedahay allele arrintan waxbay ka tabanaa inaad la fadhiisato oo aad la hadasho. midda saddexaad guud ahaan Soomaaliya waxaan rabaa inaan u sheego dadka muxaafidka u arkay dadku waxay muxaafid u maleeyeen qofka hada hoggaanka amaanaan ee muxaafid u maleeyeen amaan muxaafidnimo lagu ma noqdo haddaad xil hayso iyo haddaad shacab tahay muxaafid waxa lagu noqdaa waajibka adiga ku saaran oo aad gudato iyo adigoo madaxdaada wixii wanaaga ku taakulay wixii xun la yiraahdo waxaas waa xun yihiin waxaana ka fiicnaa inaad tiraahdo mucaaradnimadu ma aha sida dadka qaarkiisa u qaataan qofka sharafkiisa in la caayo iyo karaamadiisa ee wax waayo qofka in la xaq dhowro oo wadaadtinimadiisa la ilaaliyo oo mansabkiisa la ilaaliyo hoggaankiisa la ilaaliyo oo aan carabka la shugaysan intaas waxa isii dheer waxaan rabaa hal eray inaan ka ilaado oo ilaahay rabi maalin waxaan arkay dhalinyaro kale oo dhimaal oo markii ay kuwii hore kaceen oo yiraahdeen qaabkaan ay u jiraan dhahay waxaan u cudur daareynaa madaxweyne cabdicasiis laftagareen iyo cali saciid fiqeen cudur daareynaa annaga biimaal waxaan nahay maaragtay afaaf baan nahay waxaan rabaa inaan u sheego taariikhda qofka haddiisan akhrin dhibaato badan u leeyahay dagaalkii talyaaniga markii uu soo geli waayey deegaankan wuxuu isticmaalay erey leeyahay udub iyo afaaf wuxuu u kala samaystay labo wuxuu kala waday bulshadii maanta inkastoon ogahay in boqolkiiba 87 ay fikirkaas ku jirin haddana waxaan jeclaan lahaa walaalahay in ayagana fikirkaas ka noqdaan oo ay u noqdaan in ciddaan ay hal mid tahay oysan udub iyo afaaf iyo ay kala lahayn iyo wax la kala saaro oo ay yihiin mid afar iyo adeerkood inay yihiin haddii adi dulmi lagaa galo adi dulmi tirsanayso jiribkii adi aad qayb ka ahayd oo adi aad odayaashiisa ahayd ama aqoonyahankiisa ahayd ama waxgaradkiisa ahayd walaalkay qabso laakiin hadna kala daadinin waayo ummaddu hadday kala daadato adigana wanaag gaari maysid afaafkaa ku sheegaysan wanaag udubkaa ku sheegaysan wanaag gaarima adiga afaaf sheeganaya wanaag gaari maysid waa ogtiin kale asayd iyo wixii ka dhacay markii nala qaybiyahay marka taasna dib ha loogu noqdo guud ahaan ilaahay waxaan ka baryaa ummadeena Soomaaliyeed inuu xaqa garansiiyo oo uu wanaag u tilmaamo insha Allah billahi taala aad buu mahadsan yahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Abban Yuusuf Maxamed Muumin oo ila falanqeynaya arrimo la xiriira arrimo ka taagan gobolka Shabeellaha Hoose inta barnaamij noocan oo kale aan kulmi doono saas nabadgelyo amaan Allah hawlaha arlada lagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko min xiqaaday qadiihoy